caafimaadka carruurtu waa shay aad muhiim u ah bulshada oo dhan samaqabka iyo badqabkooda. Haddaba waxaa jira arrimo saameyn ku leh caafimaadka carruurta oo la rabo in la fahmo bulshada guud ahaan, gaar ahaana waalidka oo ah qofka ugu horeeya ee ilmaha gareeya ama la jooga ama waqtiga u badan la qaata. Waxa ugu horeeya horta marka ugu horeysa dhinaca biology ahaan ilmaha sida uu u samaysan yahay saameyn ayay leedahay. Mathalan geneticada ama hidde-sidaha waalidka kala yimid ilmaha saameyn ayay ku leedahay. Sidoo kale waalidka hooyada gaar ahaan xilligii ay uurka u jiray sida hooyada caafimaadkeeda u ahaa iyo nafaqada hooyada sida ay ahayd, arrintaas saameyn toos ayay ku yeelanaysaa. Haddii mathalan ilmaha ay xanuuno jiraan, waalidka uu ilmaha wuu usoo dhex raacin karaa. Sidoo kalena xilligaas hooyada ay ku jirtay uurka oo inta aan la dhalin ka hor dhibaato haddii jirtay ama xanuuno jireen ama nafaqadii ay ku yareed, saameyn toos ah ayay ilmaha ku yeelanaysaa oo xanuuno ayaa ka soo raaci kara. Waxaa kaloo iyadana jira dhinaca deegaanka, iyadana saameyn ayaa jirta oo ilmaha haddii meesha uu ku nool yahay haddii tahay deegaan wasakhaysan ama deegaan nadaafadeeda liidata ama deegaan toxins ay ka jiraan, saameyn caafimaad ayay ku yeelan kartaa. Waxaa kaloo iyadana aad muhiim u ah, qodob muhiim ah, dhinaca nafaqada saameyn xoog leh ayay ku yeelanaysaa. Haddii nafaqadiisu hagaagsan tahay, ilmahaas caafimaadkiisu hagaagsananaya. Haddii nafaqadiisa ay yar tahay ama xun tahay, nafaqa darre haysato, intaba waxaa caafimaadka ayay ilmaha iyo koboc iyo koritaankii iyo ladnaantii ilmaha ayay saameyn ku yeelanaysaa. Waxaa kaloo iyadana aad muhiim u ah helitaanka adeega caafimaad oo ilmaha. Mathalan tuulooyinka ay dhici karto inaysan helin adeeg caafimaad, waxaa dhibaato ay ilmaha kala kulmi karaan arrintaas. Mathalan tuulooyinka marka laga soo tago magaalooyinka laftirkeeda, goobaha ay ka fog yihiin health postiga ama isbitaalada ay ka fog yihiin iyo goobaha ay u dhow yihiin way ku kala duwan yihiin. Sababtoo ah ilmaha haddii emergency xaaladaha ay gasho uu galo kale, in si degdeg ah loo gaarsiin karo ilmaha u dhow, kan ka fogna inay waqti iyo ku qaadanayso. Marka arrintaas saameyn caafimaad ayay yeelanaysaa access-ka iyo healthcare access-ka ama helitaanka adeega caafimaad. Sidoo kale waalidka laftirkiisa saameyn ayuu ku leeyahay. Waalidka hadduu caafimaad qabo oo ka shaqeynaya caafimaadkiisa, sababtoo caafimaadka waa shaqo joogto ah oo loo baahan yahay qofka inuu xilli kasta qabto caafimaadkiisa hagaajiyo. Haddii markaa waalidku uu arrintaas ku liitana, ilmihiisa way saameynaysaa. Si kastoo waalid kasta ilmihiisa caafimaadkiisa saameyn ku yeelaa, ama ha noqoto dhinaca aqoon, dhinaca wacyi, dhinaca dhaqaale, wax walba oo waalidka uu yahay ilmihiisa saameyn ayay ku yeelanaysaa dhinaca caafimaadka. Qodobka ugu dambeeya waxaa waaye bulshada siday u taal iyo dhaqaalaha laftirkeeda. Sababtoo ah Maraykanka oo kale dhaqaale badan ayuu ku kharash gareeyaa ilmaha. Yurub sidoo kale, halka Afrikaanka ama East Africa ilmaha kharashka lagu bixiyo uu yar yahay, taasna waxay keenaysaa saameyntii caafimaad. Markii laga soo tago taas, dadka bulshadeena, qofka dhaqaalaha haysta iyo ka aan dhaqaalaha haysan way kala saameyn kala duwan ayay ku yeelanaysaa. Kan dhaqaalaha haysan saameyn xun oo caafimaad ayaa ilmaha ugu imaanaysa, halka kan waalidkiisa uu heli karo dhaqaale, uu geyn karo meel fiican oo isbitaal fiican ama dhakhtar fiican uu la kulansiin karo. Arrintaas saameyn ayay ku yeelanaysaa. Haddaba waxaa muhiim ah, mas'uuliyad wadareed ah, in laga shaqeeyo saameynahaas sidii loo yareyn lahaa dhinaca negative-ka, wixii positive oo hagaagsanna loo kobcin lahaa. Waxaan idin diyaarinaa koorso wacyigeena bulshada kor u qaadaysa oo haddii aad doonayso caafimaadka carruurta ka warbixinaysa guud ahaan mawaadiic kala duwan uga hadli doona. Haddii Rabbi idmo, linkiga ayaad hoos ka helaysaa. Waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarada hoos ku qoran. Asalaamu calaykum.